nadal yahow nadal ku dhalay kowdhe taariikh horta saasaad ka tahay kii رشيد aygu محمد wasayey كفقو ورشيدو inaadeer dee waa ku sideeda yaa hadlaya meesha كفقو waar ويا muurgal niyow وار muurgal كفقو وحال لبدي نبغى خالد ساين أقبل من النيو waar muurgal جماعة موت قال ماشي الموت قال إن بها يستمع كوسع رشيد wareer shariifow dee qolkaaga waa maxay dadkan maamulanaya وركوسع الله يعمل كده بنا وركوسع war adigu sirdooro waxa weeye horta فردونا وين أركض داود كورنا كداينا كذا ورادو جماعة هاوس كمان الجو هو بريو والله حنينا يردوار كانوا قبيل اللي ما يسكت اسكان يعني سي صوت العنايه رشيد وكوسع والله يا انا قبيل هذي والله iga dhaxgali wareer shariif وإن أروى مشغول سنة هاي جماعة ما ضحى دول كأقول فنية حير كجبينة عبد الحكيم ويرك أوكي شريف جماعة حير كجبينة جماعة هاوس جبهة هود in adeer kan daji jabhadda hawdka iga dhaxgalaya niyow mar baniyo way كوسع in adeer waxa yar qalbadu jaban tahay اوكي انا كلا سينيا كوسع شريف in adeer waxa way 10 minute kaygan qaadanaya waxa way isagana 10 minute ku soo qaadanaya sida weeyaane horta niyo waxa weeye wuxuu ka sheekeynayay futo iyo gus maqnuunimada reerkooda lagu yaqaanay kii aygu fuulayay futada u dhiganayay ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa futaawali buu ahaa kowde futaawalina wuxuu ka siiyay injirta isaaq wuxuu ku faanaya anuu iskay baraya hebelka goor war maxaa tay kii 6 bilood aanu u bariyeynay garxaj miyaanad ahayn nacalaadiga iyo hooyadaaba ku yaale 6 bilood bar waxa sheegtay reerka kaliya ee isaaqa ee magaalo laga saaro 6 bilood laga haystay aan adiga ahayn injir yahay injirtu dhash war miyaan habar jeclo jabhadii habar jeclo biyo guure fadhiday miyaanay kuwa garxajis ku bariyay baastar ku dhalay ee aanu maatadaadi iyo caruurtaadi anigu badbaadinaynay marka leedahay habar jeclo waxa ma samayn karaan habar jeclo jabhad ma samaysan karaan habar jeclo taftadaada ilaalsan miyaanay ahayn 94 ki ilaalinaysay ee iminka aad u barooranayso miyaanay ahayn iminka maxaad la caytamaysaa igu barooranaysaa waxa weeye garxajis iga dufaac oo garxajis aynu meel uga soo wada jeesano oo difaac baad u barooranaysaa Soomaa ilaa wax kale iskuma haynee waxaynu isku haynaa futa awali baa tahay cid ku difaaci mayso arabna ku difaaci maayo habar jeclana ku difaaci mayso isaaq kalena ku difaaci maayo futadaada fuul maqnuudiyo intaasaad la barooranaysaa Soomaad garan horta wax la difaaco la ilaasho deegaamadiisa inta laga qaaday loo bariyay adaa jira injirtu dhashay wax la dhex galo oo waxan kulay la sheegtana idinka jira maqnuudnimo hadda dad ku caayaysana adiga maqnuuda iyo reerkiina oo waxa way abaarsa idin furano maalin kasta Soomaalidu isaaqa ku cayda abaarsana adiga deegaankaaga weeyi maqnuud iyo xumay haddaad ku baaqayso habar jeclo maxay u kici weyday habar jeclo adeer deegaamadeeday ka talinaysaa habar jeclo kursina uma sharaxna garxajis baa u sharaxana garxajis iska celiya waxba annaga hanagu soo xoqon waxa soo cayya iyo waxa soo maaga waxa weeye habar jeclo maxaa noo difaaci weydeen warfajidiina heegoy baranay 94 hadii la idin qaldamo la idin difaacay wallahi baan la idin difaacayn mar dambe waa la idin kuufsanaya la idin ka dhaansanaya waliba Soomaad garan nin yahow baroorta jooji waxaan ku leeyahay waxaad samayn kartaan baa iska yar qofku waxa weeye haduu idin yiraahdo war waxa wadan waa qalad waxa weeye waa edeb darantiin war doorashadii baa diideen oo adeerkin baa madaxtooyada diiday doorashadii madaxtooyada ma waxa leedin dabataan difaac aftada ilaaliya war waxa cid idin ka qaadan mayso maanta garxajis baa is haysaan in adeer waxa weeye iska celiya garxajis waxba habar jeclaha ku xoqonina baroorta joojiya habar jeclana idin dagaalami mayso habar jeclana way ka ballaaran tahay 4 xabo yar yar oo TikTok ah lacag u dirtaan oo tiraadaan af habar jeclo ku hadla waa this is social media weeye waxba uma tariyaan habar jeclo kuwa dalkii jooga weeye kuwa dalkii joogaana fajidiina way fahamsan yihiin Soomaad garan waxa weeye doorashada madaxtooyada haduu Muuse qaban waayo beel kastaaba way tashanaysaa deegaamadooda u tashanayaan
ma garat anigu waxba cay badan oran maayo cay intii aan ku urin baa kuugu filan gus iyo futo haddaad ka hadashana khaniisnimo idinka u ah abaarsa idin furan kii aygu wasayay ugu dambeeyayna waa idinka hadday noqoto dhiiranaan iyo dagaal la taariikhda dee waa Soomaali way istaqaanay waxaad noo sheegi doontaa hal dagaal oo kaliya oo habarawal anigu dee 4 xabaan idin aqaanaa waxba haysay barina 4 xabo in jiro berbera ku nool baan aqaanayo hal degmo 26 jun degan baan aqaanaay ilan wajaanana samroon baa kula degan gabiilayna samroon baa kula degan oo deegaamada waa isla ognahay waxa weeye hal dagaal oo ama samroon kaligiin idinkoo futaawiliya la gasheen waa noo sheegi waxa taariikhdaasaan ka qori ama hal dagaal oo garxaj idinkoo kaliya la gasheen ilaa kuwaas un baa deegaan leedihiin ma garad ama afartiinan xubbe in jirti hal dagaal oo jifooyinka habar jecel berbere degan aan la gasheen baa noo sheegi doontaa ma garad ay waxba ka difaaci mayso ay halkana futa halkana gus waxba ka difaaci mayso laana makhluudnimo idinka idin u aaba idinkana bilaabanta idinkana dhamaata ma garad marka niyow hadii aad dood caafimaad qabto diyaar u tahay oo aad leedahay gooni baanu istaagi karaa waanu isbixin karaa noo sheegde hadii kale dee calaacalka naga daa sidii dumarkaad barooranaysa hooyada waxa ku samee aabaha warada aabaha iyo hooyada caaya makhnuud iyo u xumay ma garad marka waxa weeye doodii hadii la idinku fahmay oo la idin yiri war futaawiliyay gooni istaaga garxaj waa dagaalamaya xaq buu ku taagan yahay waxa weeye hadii dalka la wada lahaan waayo doorasho xaq la qaban waayo reer kastaba intiisu u tashanaya dhulbahantana sool intay ka degaan iyaga iska loo khaatumay ka dhisanayaan maxaad la barooran wallahi cadawgu Soomaaliland ku war Soomaaliland idinka ku cadow aan Soomaaliland ahayn muuse iyo xaafadiisa number 1 ka ah oo diiday dadku inuu wada noolaado oo diiday dadku inuu waxba wadadka miyaa ka fariidsantiin 12 kun oo shaqaale markaa qaadanaysaan 103 agaasime uu muuse idin magacaabayo oo taliye ciidanka iyo maxkamadiyo wax kasta qaadanaysaan cashuurtii dadka kale dadku haduu sixrana waa la toosay dadkii hawa caafimaad leh baa martay 2023 baa la maray wake up in yaro waxa tay futo ku xaarle oo aan waxba rag ka arage deegaanna marine oo 4 xabo in jiro xaafaday berbere ka degan soo dhaafin baa tahay iyo xaafada yare jigjiga yare makhnuudiintu ku nool yihiin nin yahow waxa weeye waa la isku toosay waa fucking 2023 weeye reer kastaaba inaad u maamulanaya hadda dadka khumkhum u shidi jirteen war khumkhumkii waa laga ilbaxay hawa caafimaad la martay waxa weeye waa la kala yeelanaya wadanka ayna waxba ka difaaci mayse points hadaad muuse yaheega difaacayso waa inaad points la timaada khiyaaliga aad ka dhamaata hadii aad sheekadaadii hore iyo makhruudnimo iyo futo iyo gusi aduun bay wax ku dhimaysaa abaarso family adigunba ah habar jecel dhaqanka ma laha Soomaydin garan marka nimayo waxaan yara qalbadu jabantay oo iyo waxba u sii badin maaye waxa weeye waynu siinayna 10kiisa bar wuxuu inoo sheegay inuu eegi doono hadii Ilaahay ka dhigo soo daa الله ينقض بس كلي وقت قال كفقوا رشيدو كفقوا مور قال خنيسه كفقوا رشيدو ابو حمد المدري دستر دور كذا انه هنا وقت كدعده رشيدو وفودي كفقوا ورته بدغ بقى والله بقى ما الهي بو سو صرايا رشيد كفقوا عبل موت رشيد موت قال موت قال horta waan galaya horta yar no rashid no ma ka yeelay moodka gal adigu hay laba nin oo caruurad naga arina gaba dhaw heerka hajabina moodka gal food waa ka dhacday armay moodka gal oo qodee ila raayada tabaqiya raatay xirba mishali gal moodka sheeg inay laba nin oo doodayay adigu sidii ilma caruur sirdoon ugu dhexdhig hadaan doono 20 baan u sii deynay adigu iskaga bax sirdoonow dema ana u sii deynay hadaan gormada ogaatay sirdoon de waaniga tadii suwati amuudka gal galmoodka admuudka galde war kullis tigar raasaa ku sijray meene ku sida iyo dantaada baan ku sheegnaa anagu ku bilow anu wali hadda sirdoon kuwa koogaad u shaqaado wataa ay waliya anu wali laba reer badafkayga galaysa wali labada reer ninna waxba kuma oran habar jacayl oo kuma dilin laakiin saada ku baabiyaadiga reerna ma soo qaado
waxaan haynin intuu halkaa waxba iska dhigo haddana isagu keligiina intuu halkaa ka istaaga faani karaa wuxuu ku faanayana xaqiiqiyin halkaasaan kaa sheegaya adigana maskaxda iyo qalbada ku jabin karaya arma ciyaal baan nahay dee naga qaban ninka dee galay mayna dee waxaasoo dhan kugu wataa maanta u dhan baad soo caltimayso waxaan igu soo bad ka dhimaan wey waa nin waxa la yidhi nin baa wuxuu yidhi haddii ba la yidhi makhnuud ku mahmaaho wuxuu ku maldahayaa waa meheradiisi dad aragto nin abaarsa iyo family iyo bbb iyo waxa ka sheekeeya wax allaaliya wuxuu ku maldahayaa waa wixii u yaqaanin weeye weligee dad aragto nin khaniis ku sheegayana isaga khaniisa gorofka caanaha halkaa lamaad soo fadhiisateen weligee lahay ma arag nin gorof caana meel loo soo fadhiisay isagoo rag u baanayo oo dagaal oog iyo maxay tay iyo diyaargarow dagaaliya wax ku jira gorof caanaha soo qaatay weligee ma arag markaad jilicsan taasaad u tahay ninkaale wuxuu yidhi haddii shimbir garab lay buu yidhi shimbir garab liya haddii ay u goodido gorgor samada duula soo garaad xumi maaha anugu garab gorkaas samada duula baan adna shimbirtaa garabka jaban baate taana xasuusno mar labaad kawdhi anigoo kuba caayin reerkaygaan kuu sheegaya aan ka soo jeedo somalilandna halkaasaan kuu saaraya kuu dhigaya wadigan baryootamaya intaa wixii ka dambeeyana siyaasaddii aad igu taqaaniin baan kala hadli adigan la daa caraar banayna miyaan iscaynaa hay iyo waxay ugu xigmadaysan yihiin dhegayso somaliland 32 sannadood bay jirtay waa bal dhammaantiin sugeeyo kala gogooye 32 sannadood ayay jirtay gebigeeduba 2 sannadood oo kamid ah allahu naxariista cabdiraxmaan tuur baa ka ahaa madaxweyne ka ahaa maxaa soo haray 30 baa soo haray hadda waa somaliland taqaano si wacan maskaxda u figa dhigahay 30 sannadood waxaad ka goysaa 7 sannadood oo kaliya oo maxay tahay alcimriga u dhareen ninka maxay tahay siilaanyo u dalka haysta ka jir 7 kaliya baan goysay only 7 years waxaa soo haray 23 sannadood baa soo haray nin khabar aboola mooyaane nin kaloo halkaa la taagnaa ma jiro waana ku kala qalaya ku kala macnaynaya 7 sannadood madaxweyne ku-xigeen baan ka ahaa naagu dhaa 7 sannadood madaxweyne ku-xigeen baan ka ahaa 7 kalena imika ayaan madaxweyne ka nahay soo 14 maaha 7 muuse bixiyo 7 waxaa suuke 8 buu ahaa wallahi iyo 8 waxaa suuke geysaa madaxweyne ku-xigeenayo axmed siyaasiine waa 15 sannadood toddoba kale lowgee hada habsharciga la naxsada ka war aduu tutalahan 23 sannadood nin habar awla gacantiisa mooyaane cid kale oo maxay tahay ay ku jirtay loo soo sheeg halkaasaan reer ka taaganay inaan lan laandheera ahay oo laba araxood oo laba lixaad sidii oo banaanka intuu degay libax la dhaaf fadhiyaan hayba ku sheegay naaguda marsadan degaan ku sheegaya istaraatiijiyadda halka kaliya ee Soomaaliland u dhimatay wada ka dabarbara takada barbar marka laga yimaadana number 1 halka kale maxay tahay Soomaaliland indheeda la arkaana waxa weeyaan waa tan maanta la isku hayo ee maxay tahay Hargeysa caasimadda naaguda hadda dhinaca uga baxdana xuduudka kaliya ee waxaan ku dekada qalan la yiraahdo wajaalana ninka labaad ninka waxaan ahay bad iyo berri iyo power iyo maamul intaba isku fulan dib baan kugu soo celinayaa taariikhda gebigeeda haddana dib u dhigeyso xaaliyo xaqba 23 sannadood markaad meel geyso bal waxaad isu geysaa 7 sannadood oo uu silaayahay iyo 2 sano loo naxariistay Cabdiraxmaan hayay soo 9 ma aha saasaan u kala nahay 9ka iyo 23 ka saa u kala yeela dhammaan reer asxaab oo dhani ay maamul iyo mas'uuliyad halka la soo istaagaan ay dhahdaan waanu maxay tahay reerkaas aan ku challenge gareynaa 9 bis ku istaa aniguna kaliya waxaan sitaa 23 sannadood misaa doonaysa adoo sayn 7 kaga talana ala baha ku yeelan aniga dal muranto
halkan soo fadhiiso dadka aad baantood faanto maadaa faani kara oo baani kara maadaa kelmad aniga ii sheegan kara cidda la hadlaysa waxa weeye waa ninka adeer 23 sannadood Somaliland gib ana waxaan u imika ku sheegaya waa sababta 24 hours nin habar awalay uu Somaliland markii la soo qaado laabta u garaacanayo waa hanti aan leeyahay Somaliland hanti anigu aan leeyahay baan u qana inaan anigu keligay leeyahay baan iyaan u qana ana ku sheegay 23 sannadoodna aan keligay aan maamulanay sideed kale ama 7 kale ninkaasaan ugu daraya Muuse gariya gadraba 30 sannadood bay saas ku buuxinaysaa adiga maxaa kaga dhelaya markaa soo gar uma lihid oo gar ma lihid oo kuma qasbrin markaa ilaa waa ku garaabayaa inta banaan istaagto inaad saa ugu soo kala qabato dalka gibiisa atraadada hadmeeyay oo leey awood aad leedahay iyo geesinimo aad leedahay iyo kibir aad leedahay waligaa ku dumin karmaysa nin kale xiriisa soo salaxdo atraada in ayar kana weyn xaga ku fiik soo mid biti soo ay ka uu ma markaa awoodda waligii iyo waxa la ilay garan lay garaad ma laho ninkii ku gujiyay ugu goshaa ilay garan lay garaad ma laho ninkii ku gujiya ay ugu goshaa soo kolba kii u soo dhalfo weyn halkan uu matraado dabada kuma soo hagays soo awooddaadu halkaa may soo istaagin ana soo ninka super power ka ee habar awle miyay halka taagan 23 sannadood ka xidhay imika la ku faanayo jooga ninka imika lagu haystaana sumaha ninka habar awle meesha waxa ku sharafta iyo qiimaha ku fadhiya abtigeeba yar duqeynaya SCC iyo waxa calaameego hooseeya blue iyo kala midabada iyo ruwaayada waxa ninka dhaliyay Soomaaliya halkaan ku joogay ilaa kale way walahi soo gali ilaa ka tahagali United Nations ka naga soo gaara soo aniga mihi ya ninka loo jabhadeynayay maanta buuraha loo koray ad sheegaysa aduu faanka ka dhiganayso soo aniga mihi bal maxaad ii faanaysa gorof calaamad soo qaateen alla baak wala afkaro u dhala halkaan soo fadhiisatay taariikh aad leedahay aad ku faanayso iyo waxaad leedahay aad maxay tahay aad faan mooyso bal loo sheeg maamul haday noqoto baa ku 23 soo badalka haysta awoodna wali waa ku fadhiyaa abtirsinimana waa ku fadhiyaa naaguna birina waa si wadanaya dan doono istaraatiijiyada noqoto baan ku marsida berbera kaliya ba iska xabiiga ma soo degaan waxa jira waxba idin kaga ma soo degaan dal markaa qurul istaag hadii la goosto ninka kaliya tii Soomaaliya lagu noolaanayo labanayno idikada berbera imika si balaarsan DP wada sameysay bana naasna haday noqoto xad iyo xuduudna ilaa halkaas Itoobiya kale leeyahayo marsada dhan baan haystaa dekada qaalan la yiraahdo wajaale gobolkii cayarnaa halkan yaala baan ku cinab iyo baruud iyo waxa ku xasiid iyo aani walba caalamka halkan uu yaala oo maxaad haysataa qorof caanaanta soo sawirata halkaas soo istaagtay ayaa doonaysa saa ugu soo kala qabato guum isnacay Soomaaliyadii barka hadda dib aad waxa ugu noqoto ninka kaliya laga wax laga wadiin jiray waaniga baa ku faanaya balinta yaradiisu waa laba yaray ugu badan maaye soo afjarayna waa arkay sida dirtay wariya dalka dhan la yiraahdo super power China ee imika fiitooga ku jira 5 fiitooga caalamka ku jira ninka golaha ku soo diray United Nations ka mataqaana maxay xajir raaciga oo habar walaana Allah hooyada muurka gal khaniis fiitoo power ban caalamka ku soo diray ku faana war muurka gal ay wal ku caajisay karina adeerma fadhiis qaadatay fiiti baad soo muurka gal khaniis oo foodi baad ka qaatay muurka gal khaniis waaye saacad kala noo hadhay saacad kala noo qabto ku socday kullis khaniis ku dhalay ee futaawaliga horta niman yahow waxaan qalbadu jabantay futaawaligii wuxuu ka dhamaan waayay futo iyo gus laana waxa way waa qowmuluud waa khaniis dhalay weeye waxa weeye iyaga ayaa waxaan ku leeyahay ku caana futo iyo gus oo wada khaniisiina ma garanaysaa marka waxay moodayaan dadka kalena waxa weeye inay khaniisiyiin marka khaniisnimaduna abaarsa u furan iyo jigjiga yar ma garanaysaan futo iyo wuxuu inoo sheegay imika iyo gus iyo naag dhalay iyo waa ooyin caadiya taas intaasan kaleeya cayda laana maqnuud buu yahay cayda maqnuud buu yahay madaxweyne ku xigeenka uu ku faanayaana waa bari way maqnuud kale oo reer burco markay ka yaabeen ay yiraahdeen bari Axmed Yuusuf Yaasiin gaari gawaadhi markii 2 yaba jiray oo waaga ma garanaysa bari weyneeyo
xagga dambe weynayd kaasay ugu magac dareen horta waa wax saa u bari weyn oo makhnuud u ahaa oo riyaal wasi jiray buu ahaa marka 8 sano waynu ka jarayna horta waxa weeye waa duni ay futo awal faanayso oo uu leeyahay berbera ana iska leh war berbera haddaad leedahay 6 bilood ayaa wiil yar oo asaagaayo garxajisi oo dhowr jifo garxaji intay ka saareen 6 months walimaade rayaalo garxajso soo qabsada ama dadka kale noo kala marxaati furo this fucking guy wux allaale wuxuu ma taqaanaa oo de ma taqaanaa ilaa waxba la isu qiraa anu taariikh dhaban ka hadlaya ma garanaysa 6 bilood iga soo gaaray khaliisku dhalay muurka gal muurka motherfucker yahow waxa weeye jifooyin garxajis kamid ah 6 bilood ka haystay 6 bilood ka haystay berbera horta markaasuu faanaya war ninku deegaan uu leeyahay cidima qabsato deegaan uu leeyahay cidima qabsato 6 bilood baa waxaan ku leeyahay jifooyin waxaan ku leeyahay garxajis ay berbera haysteen ninkii war muurka galniyo kaagan soo galowniyo waxa weeye raggii ku bariyay ee yiri war waxaan injirta isaaqe daanyarto aflaan xun dagaal lama yaqaane waxa weeye ku bariyay ee berbere kugu soo ceshay ee waxaan ku leeyahay dekada la yiri intii ka dhintay magahan haw maamulaan horta habar jeclay ahaayeen laana waxa weeye abaal ma lihidin abaal ciise muuse iyo waxa injirta abaal ma laha nacdal baa hooyadood ku taale horta abaal saasa ka tihiin taariikh aad ku faanaysana igamaad jawaabin su'aashii ahayd adigoo futaawaliyo khaniis dhalayo naag dhalaya bar waxaad sheegtaa taariikh hore ama 1000 sano ha ahaato ama 2023 ha ahaatee dagaal aad qabiil la gashay noo sheeg noomaad sheegin waxaan ku uri samaroon baa dhinaca iska gaadhaan wajaale wada degantiin Soomaad garan iyo gabiilay xaggan kalena garxajis waa wada degtaan Hargeysa berbera jifooyin habar jeclaa wada degantiin bar hal dagaal oo idinkoo futaawaliya la gasheen qabaylada kale noo sheeg waa maya ma jirto Soomaad garan tanaad ku faanaysana ee aad leedahay muusan ka ahay sidanaan ka ahay war waxa weeye waa ciidamadii Somaliland oo isku jirta weeye adigoo qabiil cid kuma duuli kartid waxa taay cadaynaysa wad ogtahay nimanka marka la dagaalamayo dagaalka imka socdee ma taqaana harti de meel kastaba reerka laga sheegayo waa habar jeclo down adiga maxaa lagu yiri futaawaliyay maxaa lagu yiri adiga habar walay soo su'aal yiri habar jeclo inaga jooga garxajso inaga jooga futaawali that means waxa ku tusaysaa futajilcina tahay bay cadaynaysaa oo aanad awowga iyo adiguba taariikh lahayn horaan la idinku sheegay hawo beena hadalan wax tarin habar waliyaale faan iyo been ba ayaa isku maaweelisaan faan iyo been ba isku maaweelisaan wallahi faanka iyo beentii uu soo go'aya hadda tiri in cigaal ba 7 sano haystay 7 sano ba habar jeclaa ku haysay in cigaal maalintii lagu dooranayay boorama habar jeclo garxajis ku xumaynaysa dooratay naagu dhale taariikhda beenta loo sheekay Soomaad garan waxa weeye dagaaladii 94 ka ana futaawali kursiga waxa ku haysay habar jeclay ahaayeen Soomaad garan tan muusana dadkii meesha keenay ee 200 ee koofiyad baclo u soo dirsadayna waa habar jeclo khaniis ku dhalay horta taariikh saasad ka tahay haddaad leedahay dagaalyahan baan oo geesi baan ahaynaa inaad 6 bilood magaalo lagama haysteen 6 bilood magaaladan berberana waa la wada degan yahay anu sidaada ma faanayo laana waxa weeye faanka ninka liita ayaa yiraahdo isku yar taageer oo isku yar kordhi faanka berbera garxajisna waa degan yahay habar jeclana waa degan tahay Cabdullah Arabna waa degan yahay Soomaad garan oo xildhibaanna uga soo baxa marka waxa soo oohina iyo rafaada waxa ka keenaya futaawaliyay war meeshan waa la kala tagayay deegaamo hadaad leedahay meeshaad ku darsanayso meeshaad doonto ku darso nin kastaaba waxa way deegaankiisu dhinac ula baxaya kii dhul yara iyo kii dad yaraaba waa la soo wada bixi hadda dadka kula dhuuqi jirtay sheekadii gaalkacayoodka ee waxa weeye markuu qofku hilib dalbado uu maraqa kugula dhuuqayo adeer Somaliland kula dhuuqi maysaante
soo ma idin garan kula dhuuqi maysaan dee haddaad 20% ka degan tahayna 20gaagaasad iimaansan haddaad 100% degan tahayna way soo bixi marka oohinta yareeya calaacalka yareeya ay waxba kaa difaaci mayso naag dhalay waxba kaa difaaci maayo waxa weeye haddii khaniisnimo iyo makhnuudnimo iyo naagnimo la sheegayo futa awali ayaa u dhaba لأنه وحوي تاريخ ذي نبص صومالي وحي كعيدا دوا أبارصو يا وحا أي وصي فتدوينا وقدام بيجي توان تريج شلاي اللي قتشرو أي أو فتدا كجاهي ده مخنود فتا أول وها صومالي قرن هرت عين ساسا أوتين أفكنول باتين أفكنول والله بالله تالله هرجي سمر أن تجيبه إنن عربي قتري واجي لبدي يكون يلا بيو طبانكي أورك حق صار maaragtay la musuq maasuqay yey waa kuwii arabku dagaalamay wallahi suuqa dhexe halka suuqa dhexe calimataan iyo u dhow ya wallahi xabadihii markuu mid futaawari maqlay wallahi wuu sii cararay dukaankii aanu dhex taagan ayuu ka cararay bay tiri oo al arabku waa kuwa soo socda horta waxa weeye niyow dagaal la saasa ka tiin fulayaal dhaleen oo weligoodba dad kale ku dhunta qaranka qarankaad ku dhuumanaysaa naag yow naagu dhalay bilaa taariikhda qarankaad ku dhuumanaysaa Somaliland baad ku dhuumanaysaa marka aniga reasonkaan leeyahay qaranku ha kala tago futadiinu inay banaanka timaado oo ay dabayshu idinka buuxsantaan doonaya as hool ku dhalay berberana wallahi baanad joogeen iyo billahi tallahi hadii lagu kala tago wallahi baanad joogeen baan kuuri inaanad maalin joogeen مخنود ku dhalay waxa taa ku cadaynaysa 1992 baad joogi lahayd berbera 6 bilood war waxaan ku leeyahay 2 cisha lagaaga safeeyay only 2 days jifooyinka xajskaaga safeeyeen soomaad garan oo habar jecel kugu soo celisay oo la yiri waarbar maxamed kaayinka mujaahidka oo yiri waarbar nimankii la laayo badda lagu daraye bar waxoogaa maga soomaad garan markaasad u haysataa inaad adigu meesha yeelatay soomaad garan dadka yar ee laga tirada badan yahay ee masaakiinta aba wax loo dhiibtaa ee laga qaadi karo soomaad caruur baatiin aan ku ilaashanayna meesha berbera caruur aad haddaan habar jeclanahay caruur baatiin meesha aad ku ilaashanayno mulkiilayaasha waxa weeye waxaan ay Soomaaliland maxaad ka war dadku waxa weeye sidiina ma gaajoonayaan dadku xoogooday maalaan the reason ka aanu doonayno inaanu barida dhulka ugu dhifano laantana xan ka sheekaynayso sidiini ina basaska ka dawarsataan baanu doonaynaa soo ma idin garan ilaan waxaad maamulku nool baatiina cashuurta dadka kala cuntaanay the reason kan u doonayno futada dhulka inaanu ugu dhifano waxa weeye sidiini ina muqorfad qaadataan wallahi nin samroon ay sheekayo wuxuu ri ruuxan futaawiligu muqorfaday sidan jireen gabiilay markaan soo dajinay horta waxa weeye ilmasilku macaash weeye wasariirku macaash kulligood bar wasiirada arag wada naagay siiyeen wasariirku macaash ina Umar Geela siil bay la hoos tageen wasariirku macaash maxaan ku dhahdayay siyaasiyiinta habar jecel garxajis waxay la hoos tagaan wasiirku macaash gabdhay la hoos tagaan kuwa dhul bahantay gabdhay la hoos oo wada siilku macaash wax makhnuudin noocaasa oo wada siilku macaash weeye soo ma idin garan adeer waxa weeye siilku macaashka iyo suqaarka iyo la isku faham xiniyahaaga fuul khaniis ku dhalay way ka dhacday in laga badiyina waxa ku gartay markaad caayday hablaha aad hablaha soo gashay la xawla wala quwwata iyar baa qaadanaya ku si fogaamayaa anigu wali ninkaan madaxa dhulka u geliyay caayina horta qabiilka reerada habar walay raali noqda waayo doqonkana afka idii geliyay anigu wali reer habar jecelaada ma caay waayo cid aad tahay garamaayo والله إيانا كوو قلين waxaan kala lehla jecloonayaa haybta reer Shiix Saxaaqad sheegto ay ugu Ilaahay oo ugu Tallaaya waxa lehla jeclo ka qabayaan habar jecel sheegto nacaskaaga soo kale waxaan ku leeyahay hablaha saalo soo dhacay candada marna taariikh nin habar yaanaysta war adigu maxaad meel badan qabsataa ha qabsaan ma ahaanay imika haday doonaan ha gubaan gabigeedii adigu ma hablo nisbaati waxa hablo nisbaaf ku gliyay garxaadsi ku glinaya uga dhamaanada nasra u dhacaysa weligay iyo Allah hal mid ku soo qaadan maayo habroonista ku soo qaadan maayo habar jecel ku soo qaadan maayo laakiin baanu saydan ku faanaya faankii uu kaliya ku dilayba marna madaxan uu ku gilay badhigayso imika habliyada gaadhay
waxaan jeclaa laakiin shariif marka hablaha soo gelayso dii anuu hablaha habar jeclaa waxba ka sheegi kara mayna maba tiidba waanu ku aragnaaye inuu kaa qabtaa baan jeclaa laakiin dee waaba iyaga laftoodaba kaa laandheeraysano waxba ma aha oo wax ka liitaacayay ka soo bax waree baa ka baxsana joog waxa weeye taariikhda kaa sheekanaya naga maagu dhalay suucan dhigayso gorof caano suucan dhigayso ninka kaliya tabaan ugu hayriya taariikh baan kuu sheegaya ninka habar wala doonayso horta aan kugu soo celiyo halkii kale maxay tahay taariikhda yareede waa mar baan daarudo dunya wuxuu labaan soo dareersan awowgaygu ha ninkii lahaa mar bay dooxada dayaree degaayeen mar bay dunidaba qaateen baa ka diiday mar bay dunidaba qaateen waxa weeyaan waa nin ciise muuse weeye ninka saa gebi waxan oo dhan baan inama ka qaataan wahayn dadooysa dagaal looga shaqeyso dekada intaa lagana ma haysteen 3 sanadoodna xukunkuma fadhiyeen haddaan ahay qof saadaas oo kala maangaab ahoo laangaaba taariikhda kaga sheekeynaya adeer waxba aniga taariikh mar aniguna mar wuxuu garxaadis leeyahay gulo carar marna aniga samaroon hay gulo cararin marna aniga maxay tahay arab hay gulo cararin gabiga waa jahureertay wax allaale iyo waxaad ka sheegato adigoo qabiil caay anuu qabiil xataa ma gelinaan ka habar jeclo inta ile kama sheegin garxaadis kama sheegin anuu qaab kale ku diliya diblomaasiyaysan waayo naag baa tayo waan ku ogayaa reeraa midna ma ahayn diblomaasiyadda ku gowracaya haddana anoo diblomaasiyadda ku gowracaya dhanna kana kuu sheegayaan waxaan ahay ku faanaya ku baanaya ayaan adigu hal shay iyo hal guul aad Soomaaliya ka gaadhay aad ku faani karin oo marna aad garxaadis kula cararaysaa marna aad carabi kula cararaysaa marna aad kula cararaysaa maxay tahay kobar reer bad gulo say gulo wareegaysaa mar arab mar garxaadis mar samaroon meel allaale meel ku ma doorto ma hayo waxaan aniga ku baday waaniga anigoo waliba waxba badanna aan ku baanin waxba badanna aan ku faanin reerana aan cayman saa ku gaa naago dhaw boqor dhuux bararow aduu nin tolcelo la dheeraabati waxaan wuxuu ii garamayna inaa yare isaarno cidna u dilimay nacs waa inaad midka ayaad kula qaadanaysaa ninka jeclo mise garxaadistee waarada yaraan habar walaalaanay kan waxaan kula qaadanaya dameer baan kula qaadanaya dameer haan baan ugu yar waqatay waranu habar jeclaanahay abal muudka galde waarada yar ma tiire galmudka dadayna kula qaadamayna galmudka anaa kula qaadan waxaan kula qaadanay waaye gal dee waaye galde anigoon qabiilba kula qaadan ku gowracay maxaa bal xaar ku walaay meel noo dhow ka qabsaa doos muudka gal dhigo sawriya nin habar awala markii doonayna ku sheegto waad haybta markan kugu sheego waad hankaaga hoos u dhigtaa China oo ah super powerka adduunka 5 feetooda ku jira ninkaas ku soo daray baan United Nations maxaa xaj Ibrahim ayaa buu ninkii uga doodayay United Nations powerkii ku tusayna alla baa ku ilaha United Nations waa in lagu soo daraa ninka Chinese ka maanta shanta dawladda labaad caalamka ugu quwada weyn bay ku jirtaa waa feet of power ana dhalay ninka keenay baan hayr xiniisa ku meesha jaamacadda carabta ilaa maalinka maanta Soomaaliya ku jirta ninka geeyay ma taqaana dameer ku dhalay ma taqaana ninka geeyay waa aniga Umar Cabdi Qaalib buu haadiyay Soomaaliya laba nin baa isku qabsan jiray xilka weligood ee la yaqaano kaban in loo dhiibi jiray ra'iisul wasaarenimada waayo waa aniga waa maxal xaj raacigaal iyo Umar Cabdi Qaalib naagu dhahay ka kaalay Soomaaliland baa la yimi dhidibada ninkii uu taagay ee waxaan ku ugu muddo dheer waa kuma waa maxal xaj raacigaal waa aniga xaariyo xaar ku dhaw ninka caalanka cuduudda lacagta ciidanka intaba wareerha maalintuu gooriyodana xiniyeenta ka qabo ayaa dastuurku ninku siiyay ku fadhiiso anigu adeerkii ku xigay baan in u fadhiis la maanta isla anigu buu hadana ahaa ninka maxay tahay kursiga madax wax la taabto reesha isxaab marka aad ninkaas maruu ku xigay anuha naagu dhalay aanada banaanka soo u dhacay ilaa garan leh baa garaad ma laho ninka ku joogsha walaga yaabaa khaatibay waxa soo amaantaan imika waa ku sii soconaya maanta ninka loo taaglayahay ciidan babay waxa ku leeyahay cabaadka iyo kaga keenay baa ku duufka ee laga qilinaya waa nin khabar wali weeyar waa musabix abdi taariikh halkaas ka taaganay nadal ibn nadal
صدق يا لبعتن سنة ضبطان لبيستون كي سنة ضد سومالان أي تالي بلدي كبرك وكل تركيا سوق يستو أيان كل يال كلتي يرون هبر ولا عن عد سوق حيسن أيها كلا فرديا Soomaaliya diina waxaan ku uri halkaas la fadhiyaa ra'iisul wasaarnimada Allah la ciidiyada anagu haysta tii hore ma jirin labada guuleeda kale waa ku sheegto adeer super China ha fito power kan ku soo dareebaan United Nations oo habra wala tan jaamacadda Carabta ninka ku geeyay ee Soomaaliya geeyay hogaamiye Umar Cabdi Qaalib buuxa waa nin habra wala war markan saa kugu faanayo naaguna aan sida taariikhdeeda aan kugu kala bixinayaan kugu soo waraayo adigu taa bedelkeeda hablacay baad yad meesha soo galaysa taa bedelkeeda adigu in marnaada xaqan garxaajis abalta shaaqasha nin garxaajis ayar shaaqasha ay kaga dhamaatay adigana wax alla iyo wax aad maxay aad isla hayso oo taariikhad maalinka maanta aad sheegay karto halkaasaan kaga baxaya waa ku siinayaa bal ar hadan laba eray isu geysay ilaa Soomaaliyeedii ilaa taariikhda hore maxay tahay aanu ka nimi ilaa taan u dambeysay bal ii sheeg waxaan ali iyo canbuufsa kaga baraysay cali iyo makhnuud iyo khaniis taa hore kaga maama waxaan ku uri hadii makhnuud ku maama habaleed wuxuu ku maldahay oo meheradiisa labadeena waa tusaale soo qaadanaya ninka codka jilicsan maanta hadii loo eego testosterone la oran karo testosterone dumarka ku jira ama hormoonka dumarka ku badanna waa adiga waxa kana caana ii soo qaatay caano مغلسة dhamayso dee dhamayso tobankaaga labaa ku hadhay dhamayso أروح بيستنى هذا حتى كده السؤال أيوة نقول waray dhaanu nin baqa ma yihiya dee hay wuxuu sheegay ma yaqaan waa futaawali weeye war adiga daragaysaa waxa ku dhex geliyay wariya مياد صور راعي صاد لك نمك يساعد يروح لي هنا شرابه khaniisow dhamayso futaawali raga labada neel ma isaaqe ee wada kaftamaya te ka dhex baxdo inaadeer هذا يسوع هذا وضع حلية حتى عمصية ديك لما ديك هي جابها هي تاريخ سقفنا هي أنا جو حوله كقصة هي ضرب كلها هي وايو حتى مني تكلم مرة يلقى يا حوماركو وح الله عليه وحامرك ما شفتوا هل من ذو كلية تاريخ إذا بقول طول عراي قبضن ووافية هذه أنت رأي كل شيء وحويا والله رياض أنت هذا أيكو حسوسنا هل كان تاريخ صادق كو horta meega hablaha dumarkaan uma qaato adigana waa ku ceeb in dee lagu sheegana way habooneed ka durug dumarka horta dumar wax la wadaa caadiye inay ku geeyeen haddaan afka kala qaadana afkiga khayr kuma ogin laakiin ha iga keensanin halkaas ka dhig waxaagaas laba xiyay garamayno waa dhuba la oran kara inba waxa ya qalad sameeyay dhigayso hablana ma cayaano taariikh iska faan iyo makhnuud ya bb iyo waxa lagu wareegaan uma aqaani ومخلود ما دي لا شغله هذا codkaagu fadha sagaalaad bad ka hadlaysa niiqda haya labadaba halka inta iska dhig wararkay maraysa oo sirdoonkii muu taganayo la ku leedahay ya halkay wax marayaan sirdoonkii mee war sirdoonkii mee sirdoonkii teeyar waxaan deeyar hay'adii taariikh sheegtay bal meegal xakumay ku maraya ma buu ka bax war waa soo gabagabeynayna makhluud kan xum taariikh ma ay warni kalimaad oo dhan hablu caayayneeyo hablu caayay oo qurayo inaar hablaha ka fogeynaa Axmed Rashiidow شريف هو نديبيا اي دغيسو كفغو هو نديبيا دغاس عبد سوسي سو دوينار سوسي بقرتو سو دويناده ادمور قلبو war may way iska dhamaanaysaa ayay noo dajinay siyaasadeedii way iska dhamaanaysaa qolkay leedahay waa sida way soo dhaw siyaasadeedii way iska adaba waa in kaga rashiidow waa rashiidow wal siyaasteen ay ku noqonay inaad yaba ka tirtamayso in yariida may wallahi kuma bacaayo taariikhdiina ما عاي تبدا دوري سو لكن hablaha ka daayna horta muur yar galday ana hadda soo say waa caad wadi man kartaa ma jirto siyaasadda iska falanqeynna inaar Rashiidow inaar naga soo koob waay may wallahi waan dhamaynayaa
waxa weeye kaftan un baa meesha ka socday kaftankii un baa la fogaaday saaxiibkeen Tiger oo waa xoogaa faankii habar wal lagu yaqaanay horta niyaho waxa weeye aan sukaa sheego anuu nin Muuse Isxaaqaan ahay oo Maxamed Abukora waa Bukor Jibriil oo Jibriil Muuse Isxaaq oo Yuusuf Maxameda oo ka dhashay Sheekh Bashiir darwiishka ugu weynaa ee qof la taariikhba habar wal aanay lahayn boorto iga dhashay sida inaadir sida ula soco Soomaad garan dacaydaha beenta aanan iyo inaadir waa la idinku barto qofka idinka soo horjeeda mabdiina inaad tiraadaan reerka maaha wallahi habar jecla ma gar taana iska daa ilmaadeen rayaan qaar baa aniga igu raahda waan yaabaa ha wallahi adiga maalin dhaweeto lagu laa shariif oo ninkan war maantadan la igu lahaaniyo maantadan nin isku haysino kula waa ninka isku haysay nin habar waayahay bal waaye ina arshido siyaasaddeenu iskaga noqonay ilmaadeen waxa siyaasadda haddii la idinkaga soo horjeesto oo qofku opinion idinka duwan uu xaq sheego de waxa weeye qofkii inaad tiraadaan wallahi nasab ma aha anu maanta ilaa maanta kumaan oran habar wal ninkaasi ma aha ciise muuse ma aha war noqon karaysaa habar jecle waad noqon kartaa laakiin aniga waxa isku qaban lahaa habar jecle doonaysa inay Somaliland burburto adu Somaliland maxaad ka hamsantii bal su'aasha ku weydiiyay asalkeeda barnaamijna su'aashaada waan ka jawaabay inta yar ma dhameeyo inaad dhimale dadka inala saaran wax ku ixtiraamay inaad horta waxa weeye sheekadan ilmaad rayaalow bedela qofka idinka soo mabda idinka duwan xaq sheega inaad tiraadaan wallahi reerka uu iska sheeganaya maaha bedela ilmaad ray shariifkaasan wallahi arkay wax badan lagu oranayo markuu yiraahdo heegoy ciyaarta naga daayo doorsho qabta horta taas taa weeye intaasan kale Somaliland inaadeer qurux badan cid kasta doonaysa ilmaadeer rayaalow Sheekh Aadan Siiro Allah u naxariiste ninkii habar wal Saacad Muuse Nuux Ismaaciil I think inuu reer Shirdoon ahaan filaya ama reer Xoosh labada mid buu ahaa reer Xoosh Allah u naxariiste wuxuu yiri qudbadiisii ugu dambeysay dardaaranka Muuse bixi u jeedin war Muuse taladayda qaado haddaad maqli weydo habar wal waxa leeyahay war dadkii idinku horeeyay gobbay ahay wallahi waan ku saari karaa wallahi ma shariifu haya klibka dadkii idinku horeeyay gobbay ahaayeen habar jecel markii dalka ay si dadka iyo dalkaba isku haysay habar jecel way isqaban jirtay siilaanya hadduu qaldamo uu qaban jiray waliba habar walay ninkan uu qaldan yahay qabta doorashadii madaxtooyada madarkiin mujaahidkii weynaaye mujaahidliga weynay oo su'aal weydiinay muraarad ilaacsan oo kule ninka iga taa hadalkiisa waxaan ku leeyahay ciilan wariyare wada iga dhaxaysan wixii Somaliland inay dhalisheeda iyo wixii caadiya mise rashidow marka khaatumay soo raacda talada Somaliland waxa la yiraahdaa waa wax kale hal burburiyo calanka waxay sitay maxaa jeclaaga hal tuuro inta jeeraan ku arkay ciidda ka badanaa Somaliland haddaad ka soo horjeesato nin habar jeclaabaatay oo ka wada yaabsay xaq baad u leedahay inaad maamulkeedii wixii aad ka soo horjeesto kuguma qasbayo laakiin Somaliland jiritaankeeda ka soo horjeesto يوم أغاني أنا من دينار سومالان بردي. ما هو سوق بقبين ما يجي نيو هذا حقوق كلا صور عيا دجال كي جرح حجسينه بلا ماي إنها فرجاري دوبتين هذا ما قرأته إن الشيء عروس تهاي ويارين توادك تايو أنا دايرسين كري. لا تاسين هذا شريفة سماي. شلون تيجي وارد القصة ما أنت كده بتيجي يصير هذا بابو لكن حلا بيدي سوداين رجيو يجي جوارد ذي النبض قاده بيدي سوداين رجيو يجي جوارد ذي النبض قاده هاي